وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا ولا ليال بشا بركيسا إنكو عافماد هينا ونبدين هينا إلها نسو قارسيي بانكم مهدنينا waa inay nicmaddaasi qalbigeenna ku weynaato adoo beled aamina joogo waddankaagii aamin uu yahay jidhkaagiina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wacalaa bisha rabadaan ku soo gaadhsiiyey waa inaad ugu mahadnaqdaa dad badan baa kal hore inala soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaane way ka intiqaaleen dad badan baa kal hore iyakoo caafimaad qabuu rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxaa laga yaabaa inay bukaan ay yihiin ay jiifaan marka waa inaan nicmaddaasi ay qalbigeenna ku weynaato ilaahay baa le wain tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana la daluumun kafaar baa ilaahay yidhi haddaad damacdaan nicamta ilaahay inaad tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan baa ilaahay yidhi runtiina waa bil aad u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumca jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo maaragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadayaa oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid waa kii lahaa maalmihiina inagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maalinta jumcada 5 khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khasladda koobaad buu nebigu yidhi abuna aadam calayhi salaam maalin jimco ayaa nebi aadan la abuuray maalin jimco ayaa jannadana la geliyey maalin jimco ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yidhi saacatulijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nebigu yidhi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jamce waa nicam weyn weeyaan ilaahay inaan ugu mahadinno weeyaan habeenkii ugu horraysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaadda taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kahratu lkhayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaye dembiga la laaqanayay ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa malaa'ig albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaadiinna waa laga xidhaa bini aadanka
وبشا كليا إلهي جل وعلا قرآنك وكل شيء مقعيقا شهر رمضان وبشا ما ركتان اللي يري وبشا قرآن كنا أوسودقي وبشا كليا النبيين أو يري habeen kasta oo bisha Ramadaan kamid ah nabigu waxa uu Ilaahay leeyahay adoomo uu naarta ku xoreeyo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkeega bisha Ramadaan fadliga ay leedahay waa bisha kaliya ee nabigu uu yiri maradatu shayaatiinna waa laga xidhaa bani aadanka waa bisha ay ku jirto habeenkii weynaa ee quraanka Ilaahay uu sida gaarka ugu amaanay ee uu yiri inna anzalnahu fi laylatil qadr tobanka damana Allah ina gaarsiiyay waa bil aad u barakaysan oo xurmadeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيء فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلهينا واكلها حديث القدسي صومك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدونك هيك كعب المرين دونا وابشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمك إنتو نن أفرين وحا أولي هي دعاء أقبله ومركا عداد أي سيدة عيسو هذا فرك ودي أرقروبي سحلق دعاء والله أقبلايا باهد هذا إلهي وشيغو صومكو وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهواتك النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصد أيو قاشان كاغا نقونيا حنونا دختردو أي دوين كريوايان أي بشر رمضان أي دويسا بل دخترada ay waraysta oo dhahala bishee baad ugu shaqo yartihiin waxay ku oranayaan bisha Ramadaan baan ugu shaqo yarnahay nin doctor oo maalin ka hadlaya ayaa yiri bishii caafimaadka timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yiri wuxuu yiri bisha cid noo timaado ma ba aragnay buur dadka bukaanku way yaraadaan bishii caafimaadka waa bishii Ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhawaanay وبشي دم بدافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نينكا صوم ابو نبي غليهي مالين كاستو او بشا كميدا نينكا صوم ابو نبي غليهي ذنبيغيسي هورنا waa loo dhaafaya من صام رمضان بشا رمضان نينكا صوما إيمانا isagoo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkan inuu yahay amar Allah xaqiisa ka yimiday احتسابنا ومحي أجرك يا ثوابكنا إلهي تبارك وتعالى كدل بايو إلهي كرجينا يا إنه إلهي كأبا المريو دنبيجي سي هراء أردن والله قد دافع النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لك بشهر رمضان صلاة التراويح ذا أكعب النبي عليه الصلاة والسلام سقوا إلهي كوكال صونو إيمان قبه واحتسابا أجر يا ثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجينا يا أجر إنه كسي عبادة إساقنا دنبيجي هوري وقد عايو دنب على قد عفاب النبي عليه الصلاة والسلام وابشا النبي يري عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرابو نبي تمر هدي تمر واينا بيها عادها كو أفرابو رسولك يري شريعة الإسلام هو عجيب لبدانا الدواء كجرته أوغو تمرتا محو نبي تمرتا أوه الرئيسيي وحال عنتدا إلى هاي دولك أو كسو صارا أو دن مذ والب في تاميغا كجرتا أيا تمرتا ودن إلى هاي كو أبو ريبا ليدي هيلبك في تاميغا كجرا تمرتا والاغا هلايا عانها في تاميغا كجرا تمرتا والاغا هلايا بريسك في تاميغا كجرا تمرتا والاغا هلايا وحليا وحا نباتات يا خضروات يا ماركتان نعم إلهي بن آذنك أوسيي عنيان مد والبا غارهان في تاميغا si gaar iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyay ba ilaahay timirta inoo soo dhaxgeliyay
timirtu waa nicmadda muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka o dhan ku gaadhsiiyeen asxaabu muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waradia allaahu canhum ajmaciin markay risaaladda muxamediyada ay xambaarayeen ee adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolinna faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo micdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka mu'minku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu siyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa rabadaan qur'aanka ay darsi jireen qur'aanka ayay akhrin jireen qur'aanka marka innakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bishaa maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaadda iyo qur'aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinnaa laynaga rabaa habeenkiina salaataleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinnaa laynaga doonayaa laba meeloodba shayddaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shayddaanka ayaa dega aqalka madhanna shayddaanka ayaa dega marka qofka muslimkaa la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaamay tahay bisha qur'aanku uu soo degey qur'aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bisha malakuljibriil intuu u yimaada qur'aanka ay wada dersi ay jireen innakuna bisha rabadaan waxaa la doonayaa qur'aanka inaan dersino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur'aan aad akhridaa si bishaa rabadaan qur'aanka mar aad u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur'aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur'aanka ma aragtaane maalin kastana 6dii maalmood baad qur'aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bishaa rabadaan inaad khatimta ma aragtaane 6 jeer 7 jeer cuثmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinnu daahir ay noqon lahaydna qur'aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray qur'aanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxaa salafu saalix culammadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka